صومالي وامد واولي وميرح متناويو نلبيك ورقتني صومالي وامد واولي وميرح متناويو نلبيك ورقتني بديغاي بديحي مكامارنتا مضحو مجها مكامارنتا مسكحيو أقون مكامارنتا بديغاي بديحي مكامارنتا مضحو مجها مكامارنتا مسكحيو أقون مكامارنتا مين ليدا هستيو مرتديو وجددا جوابها الميادا عنوه وحوياي آدي أمهاتسنتهين إن مرتدى شرفت له نوجا يمد قبل هذا كله جديسن أو rare Somali سيمن I think it will be great مركا عندها نو أنت كي ما وحنا هاي rare Somali سيمن وحنا هاي أرلادي aid وحنا هاي you know organization كان اللي عن كتير سنة that would be great مركا إن وحي وحكسو هذا كهر وحي all سيدنا وكله أي أتجين إن كندا أوهايو هذا فيرجينيا meelo kale oo badanna way u socdaan runtii waxaan jecelahay in ay la soo dhaweysaan martida aan sharafta leh oo noo timid idinkana aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh aad noola soo dhaweyseen reer Virginia always waxa lagu yaqaanay marti soorid and this is what it is ay maadeen marka isu imaashaha kaligiisa ma aha marmarka meelahan oo kale aan imaano dad aan mar hore arkin ayaan is aragnaa oo aan is salaanaa oo aan is wareysanaa oo reerihii aan iska wareystaa inta badan ma la is arko marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin organizationada sidaan oo kale marka la bilaabo inta badan Soomaalida waxay yiraahdaan oo kan oo kale waa aragnay laakiin inta badan waxyaabo fiican ka soo baxa runtii wallahi caaw halkan waxa jooga dadkii University Southern Somali nala bilaabay oo lacagna bixiyay oo contribution weyn sameeyay so last January waxaan tagay in Addis Ababa aan shir u tagay gas yaan ku arkay arday yiri waxaan ka soo graduate garoobay University Southern of Somalia oo agtayda fadhiyay wallahi waan yaabay sidaan kuusoo iyaan ku wada jirnay dadkii ku wada jiraan heen all the time waa diriri jirnay intaas ma aragtay saacadaha waa la badiyay shirkaan ma imaan karo dhibaato badana balaayada baas all that bal arag laakiin wixii ka soo baxay wuxuu igu yiri waxa graduate garooday in about like 9 arday oo nursing schools ah oo kulligooda shaqo wada haysta intooda badan labaatankii 30 ay dhigteen ayaa lagu gaaray meesha marka caawo inaan dhageysano in dadka noo yimid waxa fiican noo wada inaan ka dhageysano ee aan caawino always waxa la sameeynaa wadankeena loo sameeyaa marka waa inay positive noqoto aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa walaalkeena Muumin oo noo daadihin doona barnaamijka waa mahadsantihiin marka barnaamijka halkii baan nooga sii soconayaa insha Allah waxaan iska qiyaasayaa kulay in anagoo raashinka cunayna aan munaaqashoon karno oo aan ka dhageysan karno walaalahayn khibrada halkan ka hadli doona barnaamijka inoo wadaan marka waxaan jeclaan lahaa hadda inaan mikrafoon ku soo dhaweeyo walaalkeen Imaam Sheikh Maxamed Cabdullaahi oo ah reer Washington DC Metro internada meeshaan degan aan naqaano oo ah imaamka masaajidka la yiraahdo MCC Muslim Community Center oo ku yaala New Hampshire Avenue Silver Spring وإمام شيخ محمد تفضل كسر هو ميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم آمين. marka barnaamijka halkii baan nooga sii soconayaa insha Allah waxaan iska qiyaasayaa kolley in anagoo raashinka cunayna aan munaaqashoon karno oo aan ka dhageysan karno walaalahayn khibrada halkan ka hadli doona barnaamijka inoo wadaan marka waxaan jeclaan lahaa hadda inaan mikrafoon ku soo dhaweeyo walaalkeen Imaam Sheikh Maxamed Cabdullaahi oo ah reer Washington DC Metro intanada meeshaan degan aan naqaano oo ah imaamka masaajidka la yiraahdo MCC Muslim Community Center oo ku yaala New Hampshire Avenue Silver Spring wala Imaam Sheikh Maxamed fadlan ku soo dhawaad mikrofoonka الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وحان مهد سجادين يا ولا لهن أو اسكسو دبرهدي برنامج كان waxaan jeclahay magaca barnaamijka ama ururka inaan qiso yaro Minneapolis ka dhacday inaan idin sheego. Soomaali siman waa magac qurux badan weeye. Qisadu waxay ahayd markii Soomaalidu ay timid gobolka Minneapolis ayay waxay samaysteen organization iyo Soomaalidu waan iska naqaanayo qabiil ba iskaga dhisan tahay qabiil kasta organization buu samaystay nin baa marka mas'uul looga dhigay Mareykana oo dadkii si uu lacag u siiyo oo dadkii ula kulmo marka mar buu ku yara wareerayo qabiiladii iyo magacyaalkii waxba iskaga darsamay maalin buu isugu yeeray marka kulligood wuxuu wariyaa balkaalaya way u yimaadeen wuxuu ku yiri Ingiriisiga inaan ku sheego mar rabo because the Soomaaliyan la hadlayaa wuxuu yiri idinku waxa rabtaan isku magacaaba ani markaad hor joogtaan kulligin waxa tii negris because asaga ma kala garanayo qabiilka yahay kan iyo qabiilka waa un Soomaali way si wadeegin kulligood isku luqayna ku wada hadlayaan marka taas waxaan uga gogolahay walaalahayow 1400 iyo ziyaado markuu Ilaahay soo diray Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam Ilaahay uu bini aadamka dhan u soo diray Ilaahay uu yiri wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ayaa wuxuu Ilaahay dadkii uu Ilaahay markaas ka soo dhaxsaaray dad waxay ahaayeen Arab ah oo waxa la yiraahdo jaahiliya ay ku jireen gabdhahooda ay nolosha ku xabaali jireen way isku duuli jireen oo qabiil ku xoog badan yahay buu dhici jiray xoolihiisa iyo property-ga waxay ay leeyihiin bay dhici jireen nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu Ilaahay soo saaray hadallo oo la yaab leh ayuu nabigu ku hadlay oo adduunka maanta bini aadamka jooga hadii uu hadalkaas raaco uu nolosha maanta lagu nool yahay nolol ka fiican bini aadamka dhan ku noolan lahayn adduunka jooga hadalladu yiri waxa kamid ah nabigu kaleey salaatu wasalaam mar ay niman saxaabadiisa kamid ay waxoogaa xurgufa dhex martay dadku waa bini aadam way iskhilaafi karaan ayaa mid kale wuxuu ku ceebeeyay inuu hooyadii madowdahay qof madow ay tahay marka nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam innaka mru'un fika jaahiliya buu ku yiri waxa tahay shakhsi oo ay ku jirto wixii jaahiliyada ahaa ee la soo dhaafay maalinna sidoo kale asxaabtiisi dad kamida muhaajiriintii iyo ansaartii ayaa mar isku dhici gaaray isku dhicitaan waxay ahayd qof ayaga aan ahayn oo dibadda ka uu ka shaqeeyay buna aha si uu uga faa'iideysto isku dhicitaankooda maxaa jira waliga la soco cadawgu laba cadawba adduunka ummad kastoo jirta laba cadow bay leedahay mid waa mid daakhili ah oo gudaha ah iyo mid dibadda ah cadawga gudaha ku jiraay hadduu xoogaysto de ummadii difaac ma yeelan karto waa jirka bani aadamka oo kale haddii waxa la yiraahdaa kural bayda dhiiga cas hadduu qofkii ka daciifo sida marka qofka kansarka oo kale ku dhaco qofka jirkiisa difaac ma samaynayo marka dadka gudaha haday dhibaato ka haysato oo ayna muwaafaqo lahayn waxa soo ataay kara cadow kasto dibadda jooga oo ka takhalusi kara si yar oo fudud
marka nin aan muslimiinta markaa kamid ahayn ayaa wuxuu ka shaqeeyay inay iyaga dhexdooda la isku diro nabigu kaleey salaatu salaam arintii buu soo dhaxgalay markaas wuxuu ku yiri asxaabtii aw bid'awa al-jahiliyyati wa ana bayna adhhurikum ma jahiliyadi iyo wixii xumaa id ka soo ilaahay idinka saaray baad dib ugu laabateen buu idinkoo la jooga dacuuha fa innaha muntina buu yiri iska dhaafa waxaasi waa baqti buu yiri waa wax qurun ah ha ka shaqeyninu dhahay iska dhaafa marka sidaas uu nabigu la hadlay kaleey salaatu wasalaam marka Soomaali siman nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu xadiidkiisa ku yiri because nabiga ilaahay khalqiga dhan uu soo diray cadaankooda iyo madowgooda ragooda iyo dumarkooda gaalkooda iyo muslimkooda ilaahay nabiga waa u soo diray kulligood inuu dacwada iyo risaalada gaarsiiyo marka nabigu kaleey salaatu wasalaam ahadiisi uu inoo soo sheegay iyo khudbooyinkii inoo akhriyay midda ugu cajiibsanayd waxay ahayd midda la yiraahdo khudbatul wadaa hajjatul wadaa maalintii Arafa uu joogay markuu bini aadamka la hadlaayay ayuu nabigu wuxuu sheegay bini aadamku inay kulligood saban yihiin oo wuxuu yiri xadiiskiisa nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam annaasu ka asnaanil misht bini aadamku dadka naas marka la yiraahdo bini aadamku dhan way gaalkooda iyo muslimkooda madowgooda iyo cadaankooda waxa weeyaan buu yiri waxay la mid yihiin buu yiri ilkaha shanlada soo kulli masno waa ilkaha shanlada kale uu yiri annaasu ka asnaanil misht marka haday arintu tahay oo saad yihiin wax sharaf ah oo ama dheeri ah oo qof kale qof dheeri yahay ma jirto dhahay dadka caadi kama wanaagsano kama sharaf badno dadka madmadowna kama sharaf badno kuwa caad kullukum aadam wa aadam min turab kulligin ilaahay wuxuu ka abuuray aadam nabi aadamna ilaahay carradu ka abuuray buu nabigu kaleey salaatu wasalaam marka nabiga ay noo sheegay 1400 sano ka hor inay dadku dhan siman yihiin innaga Soomaali baynu nahay isku luqad baynu nahay isku dhaqan baynu nahay isku color baan nahay wax kasta wax weeyaan waan wadaagnaa marka innaga sidaas inaan hadana ama dadkii qaar la yaso ama qaar la ihaaneeyo ama qaar lagu xadgudbo taasida waa iska dhaqanuun wax diinteena islaamka qabto ma aha marka waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo dhameeyo آيات قرآن أو إلهي كيري في سورة النساء كجرت أو إلهي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما شرار كوضا هذا الكوضا فقتان كوضا كوريتان كوضا دتك وحي سميان أو إصلاح شران intiisa badan khayr kuma jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala markii laga reebo saddexda arimood waxa weeye qofku haduu dadka wax wanaagsan u sheegayo waxa xun ka nahyinayo illa man amara bi sadaqatin qofku inuu dadka farahayo inay wax sadaqaystaan inuu farahayo inay wax sadaqaystaan dadku laana sadaqadu waa wax ilaahay loogu dhawaado oo khayr laga helo oo ilaahay haduu ka aqbalo marka adduunkan ka tagto ilaahay uu thawaabkeeda ku siinayo way macruufka wax wanaagsan dadka in loo sheego waxuna laga reebo waa midda labaad midda saddexaad aw islaahin bayna an-naas in laga shaqeeyo dadka dhexdooda in la hagaajiyo haday dhawaato dadka dhex marto dadku bashar way iskhilaafayaan bal way isdagaalayaan dadku oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku inoo sheegay dadka iyaga kuwa muslimiinta ee muuminiinta inay dhexdooda hatta dagaal ka dhici karo وإلهي قرآن كحول وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذي دتك إسخلافان هذي دتك دحوا دباتك دعدو إلهي وحوب أن يجد لومرو أو لوحة لي خلافات كأي دبات هذا وحان إسلاهي صومالي وضد مسلمين وي هدي أي إنه دين تنا إسلام كفهمنه أو دين تأوقادنا سيدي إلهي وسود جي إن دقن كسيدي هاي نانوقادن waxaan u malaynayaa mashaakilaadeena haysto dhan way xalisim lahayn si waliba fudud bay u xalisim lahayn waxa kale oo inta ku daraya anu nin Soomaali aan ahay waana jeclahay ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda before Soomaali intaana ahayna muslim baan ahay dadka muslimiinta dhan wanaagooda iyo horumarkoodana waan jeclahay waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed maanta caawad intiina inay dhageysanaysa in yar baad halkeena fadhidee waxaan rajaynayaa dad kale inay dhageysan doonaane hal arin baan idin sheegi ummadaha jira adduunkan wax dignity iyo sharaf la yiraahdo jira wax dignity af ingiriiska lagu yiraahdo ee karaamada iyo sharafta lagu yiraahdo afka Soomaaliga jira
way idibtaa gabadh Soomaaliyeed oo dayacan markan adduunka markan waan safraa marar badan markaan arka way idibtaa haddaanan dignity iyo karaamadeenna haddaynan raadinin oo walaalnimo iyo isku duubnimo iyo wax wada qabsi aynaan ku raadinin dulli xun aan ku noolaanaynaa saa ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka saa ku sheegay sharafta iyo dignity iyo karaamada oo ilaahay wuxuu yidhi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة يا شرفت يا كرامة إلهي بالله رسول كيس على يدك إلهي يا رسول كيس ربي سر المؤمنين تا مركب وحان رجينا يا إن أرنتاس سفي عن لوجستان عوا أنو وح ما أنت أما ببلارتي وحلو مقلو حلقة شيء أما بوزيشن أدهش يقوم يجرتانيجا Soomaali intaas oo madaxweynaha soo shaqeeyay hadii caawa Soomaali dhan itimaado ay tiraahdo madaxweynaha aanu ma yeelayo Ilaahay baan iga marxaatiya wax dan oo kale waxa laga yaabaa inteena qof kamid Ilaahay waxaan caawa sheegay inuu ku anfaco Ilaahay aynu diintiisa qaadano si oo xaqana aan u qaadan u fahamno hal kelimo oo qof dhahay waxa laga yaabaa Ilaahay inuu qof ku anfaco qabiilan waxinoo tareenin qaadkan waxinoo tareenin oradka meelaha la ordayo la soo tuugsanay waxinoo tareenin nin baa wuxuu yiri maalin rag Soomaali oo farabadan oo rag dawladii ma sha Allah yaani ku jiray ayaa meel fayfadhiyo maalin waan dhageysanayo dhahay waxay lahaayeen ku yee warada hadaynu Starbucks meesha ku yaalay fayfadhiyo buu yiri waxay war hadaynu iska heshiin lahaynade lacag baa layna siin lahaa why do you need in u tuugsanaysa lacag lu siiyo why Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ina siiyay meel lagu noolaado adduunka meelshi ugu fiicneed bilaahina siiyay badda Soomaaliyeed waa badda ugu dheer qaaradda madow ee Afrika ثروة حيوانية wax la yiraahdo af Carabiga oo Ilaahay xoolaha uu nasiiyay Ilaahay dhulka uu nasiiyay wabiyalka under yaani oo daay maxay tahay dhibaatada iyo problemkan haysta waxaan islaahay wax fahmi la'aan baa jirtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan fahamsiyo waad mahadsantiin jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum jazaakumullahu khayr imaam Sheikh Maxamed Abdullaahi khayr badan Ilaahay anagu anfaco haddana waxaan u guda galaynaa barnaamijka intii xoogeeda ahayd intaynan u guda galin khibrada meesha noo timid oo caawa halkan nagala munaaqashoonaysa ama noo soo jeedinaysa barnaamijkan Soomaali siman waxaa runtii sharaf weyn noo ah inuu nala joogo caawa safiirkeena Soomaaliyeed ee halkan Washington u fadhiya ummadda iyo dalka Soomaaliyeed aan jeclaan lahayn isagana runtii sida sharafta oo noo sharfay isagana inaan u sharafno oo halkan ku soo dhaweeyo si uu laba kalmadood isagana nala wadaago safiir Axmed Ciise Cawad fadlan ku soo dhawaad safar hameen wanaagsan waxaan jeclaan lahaa inaan idinka codsado inaynu gaaladu waxay yiraahdaan daqiiqad loo aamuso inagu muslimiin waxaynu dhihi karaa faatixada loo aqriyo madaxweyne ku xigeenkii hore Soomaaliya oo dhawaanina ka geeriyooday magaalada ka tirsanaa ehelkiisuna joogaan qaar kamid ah caruurtiisuna ay safaaraddeena ka yihiin volunteers marka aynu faatixada u aqrino in Ilaahay u dambiyo waa Maxamed Cali Samantar weey qofkan ka hadlaya inta ka bacdi aniga caawa sharaf bay ii tahay inaan dhexdiina joogo oo magacan quruxda badan oo Soomaali siman iyo hawsha ay wadaan waa dariiqa kaliya oo Soomaali wanaagsan lagu gaari karo aan kala soo qayb galo markii ugu horeysay oo Soomaali markii ugu horeysay oo aniga waxay marti qaaday Professor Abdi Kusow ayaa ila socodsiiyay barnaamijkan iguna marti qaaday Professor Abdi Kusow oo kamid ah isaga naftiisu volunteer dadka safaaradda u volunteer gareeya hawsheeda oo aan abaal weyn ugu hayno waxa mashruucan hadda ay Soomaali siman wado muhiimadeeda waxaan markii ugu horeysay ku baraarugay
markii isaga iyo Enow ay ku guuleysteen jaayizada loo yaqaano main narratives award oo gobolka Maine laga bixiyo qoraal ay qoreen oo ku saabsan maaragtay narrativeska ama sheekooyinka ku saabsan inequality-ga iyo social stratification ama kala maxaa la yiraahdaa sinaan la'aanta bulshada dhexdeeda ah waxaan u maleynayaa Soomaali siman inkastoo niman takhasus u leh oo professor kamid yahay ay ga dambeyn doonaan mowduuca ka hadli doonaan waxaan u maleynayaa inay Soomaali siman ay nalka ku daarayso ifin doonto waxayna ka sheegi doonto xumaanta ay leedahay maaragtay dadka oo la kala faquuqo ama waxa ay u yaqaaniin inay mujtamaca ku jiraan dad la faquuqo ama waxa ay sociologists ku yiraahdaan historically hadii kelmadda ugu habboon oo malaha neutral ah historically excluded groups ama Soomaaliga hadalka ugu dhow noqon doona noqon kara dadka la faquuqo oo meel kasta mujtamac kasta ay u leeyahay saynu ognahay dadka la faquuqo sababaha loo aaneeyo waxa kamid ah midab race ay dhahaan sociologists mid ethnicity ama ethnicity of Soomaaliga kelmadda ugu dhow aan raadin karo malaha waxa weeye waa qabiil wax qabiil oo eg ama qabiilka weyn iyo diin asaas ahaan saddexda arrimood ugu waaweyn in la isku faquuqo siyaabaha la isku faquuqa waxay leeyihiin ama noocyada la isku faquuqa waxay leeyihiin kuwa siyaasadeed kuwa dhaqan ama bulsho kuwa dhaqaale iyo kuwa sharci ama legal yani social political economic ama legal intaasoo dhan ayaa loo adeegsadaa in la isku faquuqo ummadaha adduunka oo dhamay waa soo dhaxmaray faquuqidaasi diinta rabaan ha haysteen dadka madowga ah waa la faquuqaa qofkii ka caday wuu faquuqaa Mareykankan taariikh bay leeyihiin dadka madowga waxay soo mareen slavery iyo maaragtay lynching iyo segregation badan bay soo mareen ama takoorid iyo faquuqid badan wadamada carabta qofku ka madow yahay India iyo South East Asia waxaa jira categories dadka oo Brahmanis ilaa iyo untouchables jira marka ummadahaas oo dhami waxay soo mareen taariikh ahaan takoridu waxay soo mareen faquuqid oo ku salaysan inta badan waxyaabihii aan soo sheegnay oo ahaa ama in qofka kale ka madow yahay ama uu ka qabiil duwan yahay ama uu ka diin duwan yahay Pakistan مثلا Kristiyaanka Pakistan jooga aad baa loo yeesaa ayaga shaqooyinka oo la naco loo dhiibaa meelaha qaar koodna waxa laga yaabaa Kristiyaantu inay tahay wax diimaha kale iska saramariya xiriirka dadka wax taageer waxa sidoo kale kamid ah ummadaha la taageeray مثلا madowgii South Africa oo kaleeto حتى فقوقيدو mararka qaarkood kuma salaysna oo kaliya kala badnaanshaha South Africa madowga ayaa badnaa cadaan kuwa yaraayeen haddana madowga ayaa takoornaayo apartheid systemsku ay faquuqeen marka maxaa yeelay saynu soo sheegnay sababaha la isku faquuqa waxay leeyihiin kuwa dhaqaale kuwa bulsho
kuwa maxalliga siyaasadeed iyo kuwa sharci ahaan طبعا sidaynu ognahay diimaha dhami qabaan islaamku qabo christianity uu qabto diin kasta ay qabto caqliga caadiga ah qabo faquuqidu ama exclusionku ma aha mid natural ah bani aadamku wuxuu dhashay kulligiis asagoo isku mid ah laakiin waxa weeye natural ma aha yani wax dadku ay ku dhasheen ma aha waa wax mujtamaca sameeyay marka taas horta waa base-ka aynu fahamkeenu ka duulayo Soomaalida waxa la yaab leh Soomaalidu waa unique in many ways Soomaalidu way jiraan in dad ay faquuqaan iska faquuqaan laakiin kuma salaysna kuwii aan soo tilmaanay Soomaalidu diin kuma kala duwana sida daraadeed qof Christianity lagu faquuqay ma jiro rays kuma kala duwana oo Soomaalidu kulligeed waa isla madowdahay haddii aysan qaarkiin iska inaan qaarkeen aaminsanayn in Soomaalida mesela Bantuga la yiraahdo inay ka rays duwan yihiin anigu I wouldn't think inay naga rays duwan yihiin hatta ethnicity kuma kala duwanin laakiin waxa la yaab leh oo perhaps positively loo tilmaami karaa haddii ay dhaqanka faquuqidu wax positive leeyahay Soomaalidu faquuqeedu waa mid more or less ah social dadka ay Soomaalidu faquuqaan politically laguma faquuqin oo dad badan oo Soomaaliya oo dadka la faquuqa ayaa Soomaaliya leadership-keeda meel heer kasta ka gaaray ma jirin legal foundation ama legal basis Soomaaliya ilaa intii xornimo qaadatay iyo ka horba ama diinta ku dhaqmaan ama dhaqanka xataa baadiyo ku dhaqmaaneen dad sharci loo dejiyay in lagu faquuqayadana ma jirin so there was no legal basis economically dad badan oo la faquuqa dadka kale way ka dhaqaale badan yihiin mid magaalo iyo mid kale taba iyo beere iyo wixii la mid ah marka Soomaalidu waxay ahayd wax la sameeyay mid la sameeyay oo social ah trendigu laakiin waxa weeye adduunka oo dhan oo Soomaaliyana aysan ka mid ahayn oo hadalka yani aan ku gabagabeynayo bishaarada leh waxa weeye trendigu wuxuu u socdaa faquuqidu inay sii yaraan doonto oo ay dhamaan doonto hatta Mareykanka yani madowga oo la takooro ama la segregate gareeyo mar hore soo dhamaaday waad ogtihiin siyaabo badan oo lagu daaweeyaa jira oo ay ka mid tahay ama affirmative action oo dadkii wax loo geystay oo loo compensation loo sameeyo loo gudo wixii loo geystay oo la yeelay ama legal reforms la sameeyo meeshii uu sharciga maaragtay lagu takooraya dadkaasi lagu faquuqaya u jiray waxa kale oo ka mid ah sababaha la isku daaweyn karo iyada oo educationka oo dadka mujtamac oo dhan oo educationka awareness keena iyo dadkii naftoodii oo la empower gareeyo la faquuqayay Soomaaliya saan u tilmaamay inkastoo scholars iga dambeeyay hadday rabaan ay igu khilaafi karaan faquuqida jirtay inta badan bayskeedu wuxuu ahaa mid social ah oo aan sharci oo constitution inoo degan oo dadkeena kala faquuqaa ma jirin حتى مجرين political maaragtay faquuqid oo dadka Soomaaliyeed shaqooyinka waa loo sinaa social bajri qolada ma ka guursan karo miya iyadiina the good thing waxa weeye sida trendigu yahay way sii dhamaanaysaa waxaan u maleynayaa in ay the more ay dadku noqdaan dad mutacallimiina the more uu dhaqaaluhu kordho the more wacyigu kordho in ay iska dhiman doonto dhaqanka xun oo faquuqida waxa kale oo jirta Soomaalidu markay yimaadeen ka soo baxeen biicadoodii dhulka yimaadeen waxay ogaadeen
in ayagaba la yasi karo kuwii wax yasi lahaa ama wax faquuqayay marka anagu Mareykanka nimid waxaan ogaanay madowgu inuusan kala duwaneyn kulligeen aynu madownahay haddii madowgu ceeb yahay inkastoo aynu u haysano kulligeen in qof bani aadam qofka dadka bani aadamka oo dhan Ilaahay karaameeyay oo qof ceebaysan u sin jirin midabkiisa ama diintiisa ama dhaqankiisa aysan ceebaynayn sidaa daraadeed waxaan ku gabagabeynayaa hadalkayga Soomaalidu in many ways dhaqankoodii faquuqda ay ku soo dhaqmeen mid diin iyo sharci ku salaysan midna ma ahayn waxa mid dhaqankeena reer baadiye ku salaysnaa isagiina insha Allah waxaad moodaa inuu soo dhamaanayo tarandigu saas weeye sida ka muuqata halku dhaga siman ay Soomaali siman halkan ka muujiyeen waxa weeye sida kaliya oo Soomaaliya ku wanaagsanaan karto gaalada waxay yiraahdaan in the perfection of the union in Mareykanka oo dhami wanaagiisu wuxuu ku jiri karaa in dadkoo dhami ay xaqooda helaan inaga Soomaalida wanaageen wuxuu ku jiraa Soomaalinimadeenu dhameystirmi kartaa haddii aynu inagoo dhami aynu ogolaano dhabta jirta xaqiiqada jirta oo inaynu kulligeen isku mid nahay oo kulligeen walaalanahay sida daraadeedna aynu ka gudubno haday inkastoo trendigu tilmaamayo sooner or later inay iska dhiman doonto faquuqidii jirtay oo dhaqanka dambeeya ku salaysnayd inaynu soo dedejino inaynu inagoo dhami qayb ka qaadano inaynu awareness-ka dadka raise gareyno inuu muujino in waxaan aysan natural ahayn ay tahay wax maaragtay caqligeena oon mar aynu xoogaa wareeray galay sida daraadeedna siday dadku sheegayaan towards a perfect Somalia ama towards perfect future waxa lagu gaari karaa inaga oo kulligeen midnimadeena iyo sinaanteena iyo walaalnimadeena hubina ama xaqiijina ka dhabayna xaq sharci ama constitution ha noqoto ama sharciyo kale ha noqotee iyo xaq dhaqanba waa mahadsantihiin mahadsanid Saad Safiir runtii aniga oo maaragtay kamida dadkii wadankan 30 sano iyo washii joogay aad baan ugu faraxsanahay in safaaradeeni loo furay Abu Karba anbayno ahay markii ugu horeysay kadibna safiirka uu noo yimid oo maanta aan calankeena u suran yahay oo aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay waana mahadsantahay ka soo qaybgalka ka soo qayb gashay barnaamijkan caawa إن شاء الله برنامج كان سوى ذنينا وحل حسوسية خاصة خبرات هالكن كهذا دونه أدين كذي جرت سيدا وبالانس قرين لهذين تي في جنا حلو بهايا إن فيرسان ضد كي هالكن عاود يمنا إن فيرسان مركز أدين كذي جرت سيدا وبالانس قرين لهذين وحلي هالكن لحظة وين تاجنتين intaas ay loogu soo kordhiyay si ma aragtay qolyaha duubaya idaacada TV-ga ay u helaan wax fiican oo idinka duubaan insha Allah anagoo cashadeena iyo waxaan iska sii wadanaynaa waxaan rabaa inaan hadda aan u guda galno khubradii halkan caawa noogu yimid oo arimahan Soomaali siman nagala hadlayay inaan qofkii ugu horeeyay aan halkan ku soo dhaweeyo oo runtii meel fog nooga yimid walaalkeen Dr. Rashid Farax oo nooga yimid San Diego, California. Dr. Rashid waxa uu PhD ku qaatay waxbarashada runtii waana maaragtay waa heer sare jaamacad la yiraahdo Alliance International University oo San Diego, California waxa uu runtii hadda macallin ka yahay oo ka dhigaa waxbarashada naftigeeda jaamacad la yiraahdo National University oo ku taala San Diego, California runtii aqoontiisa iyo qoraalada uu sameeyay oo hadda la soo diray halkan maba dhameyn kara hadaan caawo dhan idii akhriyo isagana waa kala tastay wuxuu yiri sheekadaas galin halkaas aan ku ekeynayaa Dr. Rashid ku soo dhawaad mikrofoonka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا نواف سلامي سفيرك وكم هاد علينا رنتي waxaan oran lahaa oo dhan safiirka dhig everything dhinacii sociology-ga dhinacii tacliinta dhinac kasta taabay marka waxba ima harin laakiin I will try inaan maaragtay wixii aan oran karay inaan idhaahdo waxaan marka hore idin salaamayaa reer Virginia weligeen for the last 30-40 years waxaa la maqli jiray oo la oran jiray dadka Virginia jooga waxa weeyaan waa the most perfect Somalis yani dadka educated ah dad tacliin leh dad shaqaysta marka hambalyo I want to thank you inaan caawa sharaf ii tahay inaan idinla joogo caawa waxaan doonayaa inaan idin yaro sheego Somali Siman waxay tahay Somali Siman waa non-profit organization weeyaan Somali Siman waa non-profit organization weeye qabiil kuma dhisna waa diverse group dad kala duwan ayaa wada waxaa la bilaabay almost 9 months ago ilaa 1 year ago ujeedada Somali Siman waxa weeye systemkeena Soomaaliya ka jira xeer ahaan la asaasay maybe 200 sanadood horteed oo oranaya Soomaalida nasabka leh waa afarta qole ee waaweyn wixii afarta ka baxsan ama waa Soomaali dhiman ama waa Soomaali nasab dhiman I mean that is the fact when we ogsoonahay taa marka Somali Siman waxa ay jeceshahay inay maaragtay dadka wacyi geliso oo ay maaragtay ka hadasho cadaaladda iyo sinaanta inay Soomaalida oo dhan wada siman yihiin meel kasta ay joogaan aanay ka soo horjeedo sinaan la'aanta soo jirtay 200 sanadood hadana ka badnaynba marka ujeedada Somali Siman waa sida ma aha political organization ma aha oo politics shaqo kuma lihin waxa weeyaan bulshada Soomaalida meel kasta ay joogaan baan doonaynaa in qof walba ama qabiil kasta ay sharaftooda iyo sida uu safiirku sheegay dignity-gooda la ilaaliyo lana siiyo inta markaan ka baxo caawa runtii and I'm very serious about this intii aan oran lahaa the ambassador already finished it issue-ga doonaya inaan ka hadlo wuxuu ahaa issue-gan kala saaray Soomaalida qaar la yidhi Soomaali nasaba baa tihiin qaarna la yidhi Soomaali nasaba ma tihidin dadka minority-ga runtii Soomaaliya way badan yihiin ma yara waa almost 3 million people way gaarayaan qaar sida uu safiirku sheegay waa maba kala garan karaysid Soomaalida way u eg yihiin waa isku af waa isku diin marka hal sidii loo heli lahaa waxaan uu soo jiray we are in 21st century ayaan ku jirnaa wali hal baa la raadinayaa marka Somali Siman this is what we trying to do and so stratifications wuu ka hadlay safiirka laftigiisa stratification system oo dadkii kala qaybiyay laakiin dhibaato keenay oo dhibaatooyin fara badan buu keenay dadka minoritiska waxaanay had iyo jeer ku xidhan tahay gobolada gobol buu ka fiican yahay gobol buu ka duwan yahay laakiin gobolada qaarkood Somali minorities
dhibaatooyin fara badan baa ka jira aad macnihii waa total segregation iyo separation baa jira oo soo jiray muddo dheer aanan weli waxbana laga qaban markaas waxaa sababta u keenayna ma aha inay dadkii ay kala duwan yihiin waa social systemkii la dhigay ee la yidhi fourkaasaa ah soomaalidhaba wixii ka baxsanna ma aha later on fourkiiba 4.5 la yidhi oo legalize baa laga dhigay marka this is where we at right now in the 21st century xoga yaro maaragtay experienceska dadka minoritieska lagu haya ayaan ka yar hadli doonaa magaalada aan joogo anigu San Diego California waxaa jirta islaan Soomaaliyeed oo maybe 75 years old ilaa 80 way gaaraysaa gabadheeda waxa guursaday wiil minorities ka mid ah islaantii way diiday ma ogolaan arooskii ma iman sanad kadib ilmaa u dhashay gabadhii islaantii weli uma ay tegin ilmihii ay ayada u ahayd sii soco I think ilaa 3-4 caruur bay dhashay welina ilaa imaka uma tegin okay waa 75 years old 80 years old waxba maaragtay يعني I don't know أنا ما قرأني قف كمالة قف البو دونا لكن sooner or later مشكلة تاجم حوالي إسلام مالين كستوي تكتاه every day yeah every day يعني قف سيت شنطة صلاة she never misses مركز سؤال شو حوالين مساجد كم واحد تجلس بإلهي بكتب جينيس I am sorry نسوي سكت كنيسة وحي لو ذي عروتي أي واحد مركا إلا إمك to this now ولي عروتها ما أي صار قرب مرين مركا وحنا كنت صيا معنيه سيستم كجاهلي جا سدو ماركتي قفكو وسيديتن سنوات قاريو وسيلانو كل ما نيو يسقون ولي رنتي برن واحد شراء Soomaaliya ardayda joogta aad bay ugu dhibaataysan yihiin aad iyo aad bay ugu dhibaataysan yihiin anigu dissertation-kayga waxaan ka qoray ardayda minority-ga Soomaaliya jooga dhinaca north-ka jooga dhibaatooyinka ay iskuulada uga tagaan marka dhowr iyo 10 jir markay marayaan way ka tagaan iskuulada qaar badan baa ka tagaa sababaha uga tagaana wax kale ma aha waa social system-ka inuu ka hadlayno ayuunbaa iskuuladana lagu isticmaalaa dowladana lagu isticmaalaa meel kastoo aad joogto ayaa lagu isticmaalaa system-ka marka ilmaha yaree minority-ga wuxuu la kulmaa wax la yidhaahdo bullying وين وذا قرننا وما ركتي أما أفلقادو أما عي أما دجال عروتان ورئيستي قاركود سواه وقتجين وحويان مالين كستا أما قبيل كودا الوعايا كلمة حن وسيدا ما ركتي مدجان وحي لمضة يا الوضعايا مركا after so many going back and forth iskuulka way ka tagaan iskuulada halkaasna ma laha programs maaragtay oranaya waxa la yiraahdo retention oo xarunta si aan iskuulada u tagin aanu sameeyno ma jiraan waxaasi marka dhibaatooyinkaas ay leeyihiin waxaan joogay London last year baan joogay waxa jira program la yiraahdo Somali Week marka way yeedeen kale yiraahdeen marka minority issues baan ka hadlayay macallin ka dhiga jaamacadda adiga I think university somewhere in north wuu yimi wuxuu yidhi Rashiidow
you know issuegan aad ka hadlaysaa wuxuu ahaan jiray taabuu macnihii mamnuuc lagama hadli jirin Soomaaliya markaasaan okay so what do you mean wuxuu yidhi waa you know way fiican tahay in laga hadlo laakiin attitude-ka aan ka arkay waxay ahayd inaanu happy hayn in laga hadlo mawduuca and why a lot of people waxay jeceliin in maaragtay on topic laga hadal so if we don't talk about it gorma solution la helaya generation after generation after generation ayaa sidaa lagu soo socday lagu baaba'ay and conference Minneapolis ka jiray 2007 2000 ma garanayo and nin baa intuu yimi igu soo bareeray uu yidhi gaalada maxaad ugu sheegaysaa waxaa jira straight like that yeah macnihii waxaa la doonayaa inaad ka aamusto waxaan wax laga aamusi karo maaha runtii waxa weeyaan waa moral issue ta ugu sii daran waxa weeyaan muslimiin baa la wada sheeganayaa oo leeyahay muslimiin baan wada nahay but we don't want to solve this problem in a hortaala so I think Somali siman anagu saan sheegay politics manihin politics kumana jirno Abdi Kuso ayaa ideadan la yimi very brilliant idea planku waxa weeyaan in dadka aanu educate garayno aan u sheegno runta hadhow new generation kaas ayaa bedeli doona oo maaragtay sii wadi doona ambassadorku uu yaro taabtay uu ka hadlay way jiraan adduunka way ka jirtaan waxanoo kale way ka jiraan laakiin adduunka meel kasta oo aad tagto sharciyaa jira for example Japan haddaad tagto waxaa jira dad la yidhaahdo burakumin waa dad Japanese-ka umay u egyihiin waa sida Soomaalida minority-ga oo Soomaalidu u eg waxay sameeyaan ama ay sameyn jireen berigii hore xoolahay qali jireen hargahay ka shaqeyn jireen adiga shaqooyin ka duwan baan u maleynayaa Japanese-ka caadiga marka waa la takoori jiray berigii hore laakiin since 1920 dowladda soo gashay wax ka qabatay sharciyaa la dhisay constitution-kii baa la bedelay and within 20-30 years sheekadii way isbedeshay marka inaga mushkiladeena waxa weeyaan topican lagama hadlo topican dadka mutacalimiinta ah badankoodu ma doonayaan inay ka hadlaan the only person aan u arkay oo maaragtay aad uga hadla waa Dr. Abdi Kuso oo nin geesiya dareen uu dareensan yahay qofku waa inuu dareen yeeshaa waxa weeyaan jiilkan hadday sidaa ku baabeen jiilka kale siday u noolaan lahaayeen sideebay si nabad leh oo wanaag leh oo sinaan leh ugu noolaan lahaayeen Abubakar Armaan laftigiisa waa nin qoraa isaga laftigiisu ku jira arintan oo aniga 2005 mise 7 meelan ka hadlayay wallahi wuu ilmeeyay yani waxa ku tusaysaa qofka Soomaaliga saxa uu ka damqanayaa waxan marka Abubakar Armaan isaguna waa geesi kale marka waxaan u baahanahay leadership-keena Soomaaliya meel kasta joogaan ama Soomaaliya Somaliland Puntland meel kasta ay joogaan sida uu safiirku sheegay in laga hadlo arintan oon laga aamusin oo ay naga daayaan 4.5 kan ay nagu wareeriyeen laakiin ka hadlaan Soomaali siman dowladaha kale marmar waxay sameeyaan
apology baa la bixiyaa oo maaragtay raaligelin dadkii intaasoo sannadood lasoo ama gumaysi ma aha laakiin waa oppression oo kale marka marmar waxaa la sameeyaa compensation uu sheegay safiirku iyo legislations oo constitutionka la bedelo ama lagu daro arrimahaas iyo sharciyo la keeno adag oo diidaya wax la yiraahdo discrimination ta kale waxa weeyaan systemka runtii aad dhibaatada u keenaya waxa weeyaan 200 years ago I don't know goor ahead markii la asaasay xeerka la dhigtay ee la yidhi afartaasaa Soomaaliya wixii ka baxsana Soomaali maaha ma qorna maaha xeer qoran maaha waa unwritten law ama code ka in abolish laga dhigo oo la baabiyo weeyaan kuma sii badnaanayo minority-ga ama dadka laga tiro badan yahay message iyaga laftigooda inaan u dirno weeyaan anu waxaan oran lahaa minority-ga waddankan waa waddankiinii waad ku dhalateen boqolaal sannadood baad joogteen ka qayb gala ha aamusinina wixiina xaqiina ka hadla si nabadgelyaha uga hadla walaaladiina Soomaalida ama idin dhibtay ha ka xashoonina issue-gani waa very very serious issue haddii aydan ka hadal haddii aydan waxba ka qaban idinka laftigiinu generation by generation sidaas un baa loo soconaya lastly Somali siman haddaanu nahay waxaanu aaminsanahay sinaanta Soomaalida iyo cadaaladda Soomaalida waayo sinaan la'aan iyo cadaalad la'aan nabad ma keenayso marka anagu nabadaanu jecelnahay sinaanta Soomaalida jecelnahay meel kastoo ay joogaan we love Somalis and we welcome equality of all Somalis no matter where you are and thank you very much mahadsanid Dr. Rashid Farah haddana waxaan jeclaan lahaa inaan mikrofon ku soo dhaweeyo Dr. Abdi Kusow Dr. Abdi Kusow runtii waa nin sidaad maqasheen runtii geesi ah oo arrimaha runtii aad iyo aad in muddaba u beerdhigay ka shaqaynayay waxa uu ku takhasusay oo ku qaatay shahaadadiisa arrimaha culuumta bulshada socdaalada kala duwan iyo midatakoorida waxyaabaha la midka ah oo qoraallo badan ayuu ka sameeyay waxa uu waxyaabaha qoraalada uu sameeyay waxa kamid ah inuu wax ka qoro ama editor ka yahay journalka la yiraahdo Putting the Cart Before the Horse Dr. Abdi Kusow waa runtii nin aad iyo aad qoraallo badan u sameeyay muxaadaraad badan jeediyay waxa kale oo editor ka yahay Journal of Somali Studies haddana waxa uu professor ka yahay arrimaha sociology-ga iyo African American Studies oo ka dhiga jaamacadda Iowa State University Professor Dr. Kusow fadlan ku soo dhawaad barnaamijka Thank you. Always good to see you. Thank you, Minister. Thank you. All right. Magaaladan last time kii aan imid airportka waxaan ka soo raacay nin oo taksiila ah oo dadkan deriskeena ah ila ekaaday marka waa sheekaysanay yani intee ka imaatay arrimahaasayto marka waxaan ka imid meel Iowa la yiraahdo marka wuxuu yiri Iowa maxay tahay marka waxaan yiri Iowa waa meel inta oo dhinacan oo Midwest-ga waxaas ku taalo marka wuxuu yiri America miyaa meesha waxaan ku yiri America waaye marka waxaan sheekadaas u sheegaa Rashidna had waa cabsiyay wuxuu yiri dadkan Virginia waxa way dad wax bartay oo marka meeshaan anaka TV-ga leen ka arkaynay moogtahay Iowa markaa joogtay
TV gaad ka fiirsataa meeshaan in New York iyo marka xoogaa cabsi aan ugu jirto marka naga raali ahaada ma garanayno waxaan idin sheegno marka waxaan rabnaa runtii horta waxaan idinku salaamaa 114 cadadda quraanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahad alla kadib waxaan rabnaa inaan mahad u celino dadkii noo suurageliyey inaan meeshaan imaano oo aan idinla sheer gareyno ama aan idinla wadaagno arrimahan oo Soomaali siman ku saabsan Baarlin Ali Xasan Cabdillaah Maalin Guur oo runtii markaan warsanay annakoo waqti dambe ay tahay oo isla aan hubin really say wax u dhacaayeen oo asagana uu ku qornaa safar last week ayuu wuxuu yiri markuu dareemay in oo xujadan ugu adag tahay ayuu diyaaradiisii ayuu bedelay safarkiisii oo bedelay next week iyo wuxuu yiri ana iska bedelaya ana idin kaalmeynayo ilaahay ha ku kaalmeeyo ilaahay ku kaalmeeyo Abdi Malik Abdillaah هيكل كرديد thank you very much ماشينك ماشان كدم بي واي هيكل مؤمن برة thank you wow thank you very much يعني مؤمن برة وحنا سي really comfort أو ده يسوع possible وحانيت هسوريرنا لعكتان كعبسني مال إيمانا أنت وهو يري okay don't worry Ambassador Ahmed Isa Awad, thank you very much. Honestly, يعني the first time أو أنيقا أندرمي واي نين أو سومالي أو official أو دولة جرتا الشقية أو يمت أو لا يعني أرين أو social issue أو maybe وحيالها دولة ما أحا أو دولة دولة أيسن جعلين إني كهذا الشو نوغو يمت مركان really أن لهذا لا يوحنكو إري أمباشتور سيكولته أرنتانيتو وحويري وحا أن دولة ونخيبة وأرنتان معنيه هلا كالميو Ambassador, thank you very much. Sababta aan runtii aan cawada aan halkan idin ku yeernay ama aan idin ka codsanay inaad noo imaataan waxay tahay in aan idin la wadaagno dareen aan qabno dareenkaas wuxuu yahay Soomaaliya dareenkeena annaka wuxuu yahay in ay ku socoto god khatar ah dagaalkii waa dhamaaday yani noloshii waa soo noqonaysaa dadkii waa iska roon waxa soo dhan waa dareensanahay macnaheedu laakiin waxaan dareensanahay in ummadda Soomaaliyeed ay god khatar ku socoto ummadda Soomaaliyeed markii aan dhahno annaka ma ka hadlayno jufad ma ka hadlayno gobol waxaan ka hadlaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay khatar ku soo socoto macnaheedu oo ah khatartaas jiritaanka naftiisa jiritaanka ummadda nafteeda inay khatar ku soo socoto khatarta waa laba nooc mid waxa waaye khatartan oo ummadii iyo shakhsiga iyo shacabki waaye midna waxa waaye tan oo institutionada tan oo dawladda iyo hay'adaha iyo waaye marka individualska iyo shacabka iyo shakhsiyaadka dadka masaakiinta everyday people markii aan ka hadalno aniga waxaan xasuustaa 10 bilood ka hor waqti 10 bilood ka hor laga joogo nin aan friends ahaan jirnay oo dagaalkii ku dhintay oo xaaskiisa aan la hadli jiray oo marmar aan ka kaalmeyn jiray ayaa wiil ay dhashay ayaa meel magaalo kale magaalooyinkii kulay hadda waxba magac ma jiro magaalo kale ayaa lagu dilay macnaheedu
dadaa dilay dadkii kulay lama oga macnaheed marka waa wacay oo waxaan ku iri salaanaan u wacay tacsiyaan u wacay inaan ku iraahdo bal yani sida arrimaha yihiin dan markii aan sheekaysanayn waxay igu tiri bas tacsiyadii wiilkii waa dhintay inta aniga waxaan iska iri daacada iga tahay waxaan iska iri ma warsatay ma laga warqabaa qofkii dilay macnaheed ma warsatay أنا مرك دا عادي بيجات هاي مركزي واحد يتري محن أورسنا واحد ديفرنس محي سمينه معناه هدي اللي إيش يقول هدي حتى أن أقعدان بوحن كعب سنة إني بروبلم كيسي بطه معناه مركز واحد يتري إلهي قرب كيس هقلي هسك صعد مركز و desperate situation واي معناه هذه ما وقتها level أو حواي أو desperate أو قفك ابن آدم كأو جاري يعني ورماتي أو وحن كقبان كرنا مالها أرين تانيت marka wadan marka la leeyahay ma aha dhulka ma aha physical geography space ka ma aha wadan marka la leeyahay waxa waaye dadka waay ummadii waay dadki hadii desperate noqdaan dadki hadii jabaan then wadanka waa iska dhul waa iska space wax difference oo sameynay ma jirto macnaheedu arrinta gabadhan hadda aan idin sheegay kuma eko waa arrin baahsan fiiri arrimaha qaxootiga Soomaalida meel kasta ay joogaan gabadhii Soomaalida ahayd oo few years ago Olympic Gameski ayay tagtay la yiri markay soo noqotay sanad kadib waxa la yiri baday ku dhimatay macnaheedu markaas macnaheedu daraad waxaa la yiri intaasoo 100,000 ayaa dabaab laga soo celiyay waxaa loo soo celiyay Kismaayo ma fahanti macnaheedu hor i gadaalay u socdaan macnaheedu okay so dib ayaa jira macnaheedu Soomaalidii diaspora joogtay anakoo dhan struggle ayaan ku jirnaa caruurtii dhibkii yani xabisyadii dhibaato aad u weyn ayaa socota macnaheedu marka taas waxa waaye tii oo qofkii ay waay macnaheedu marka waxaan isleenahay runtii jiritaankii ayaaba shaki ku jiro jiritaankii ayaa khatar ku jiro waana u jeednaa annaka macnaheedu Soomaalida markay iswarsato oo ama Soomaalida ala hadashid ka wax barta ahaado dawladii ha ahaato qof kasta ha ahaato waxay dhaheen dhibka wadankan ka taagan simply waxa waaye waa laba nooc waxa la yiri ama waa qabiil ama waxa la yiri faragelin shisheeye aldaha magaca loo bixiyay macnaheedu ama waa qabiil ama waa faragelin shisheeye qabiil hadii lagu yiri waxa la yiri waa un iska qabiil qabiil maxaa lagu jeedaa adi qabiil un baa la isku haystaa ma lagu sharaxo qabiil la isku haystaa lagu dhahay adiga macnaheedu ma ogtahay okay qabiil la isku haystaa dawladii 60kii waxay tiri qabiilkan la isku haysto ayaan ka tageynaa waxa la soo alifay wax la dhaho x waxa lagu dhahaa qofka hebel Abuukar Armaan x kiisi amal يعني مركي هو رؤساس أهانجري هذا الشيء كذا سواء كبحنا عمل موقته معنا تاسي اسكو ديوي ولا صوص عدي لحدن إسقالكي مركي لجاري لحدن إسقالكي أنيجا وحن إجناي جريد 5 قفكي هذا داري دكو حراء سيء وتعالى لحدن إسقالكي جريد 5 أيان إجناي 70 إسلا أنكو جوجن أيا وحاليري وحن حسوستا dadkii qaarkiin waa ogtiin kulay waxa la yiri maalintii oo la duugay way qabiilka grade 5 anako kulligeen waana la xaraashay waxaana la geeyay meelihii oo yani nabi xuska isbartiibadii nina loo soo galiyay covid iyo shaati iyo mare iyo wax saas amala benzina lagu shubay waa la gubay macnaheedu waa la duugay macnaheedu بس ولا خد بيقول ودي على إمادين وحيد هن نكي ولا جوبي كسر هذا ماشي أوكي نكي ولا جوبي بروجكت تيجي ماشي ذي كسرت معني ممتاز ولا جو بابا أيتي أنت مركي هذا لوسو جوبي شاكدي وحيسو بدي شيء وحلي راه هذا 4.5
nidaamaaba naloo keenayba nidaam oo la leeyahay waxaa la dhahaa 4.5 qabiiladaanayto waxay keensanayeen numberkan kuwan waxay keensanayeen numberkaanay sababta loo yeelay waxay tahay dadkii tiradooda lama ogo ilaa 6 ahayd kuwan idinkana 6 keensada waa dhamaatay macnaheedu maxaa la isku haystaa markaas okay taas horta yani levelkii siyaasadda kaliya way taadi kale waxaa lagu yiri qabiilkaanayto runtii waa iska kaas yani problemka qabiil waay nan yani qabiila la isku haystaa qabiilkiina waa iska dhamaan doona ama waa la duugay or whatever marka waxaa la yiri tan kale maxay tahay marka maadaama haddii uusan qabiilkii issue ahayn uusan problem ahayn waxaa lagu yiri Soomaalidii qabiilo kala duwan way laakiin waa isku wada mid kulli yani wax dhiba ma jiro kulli waa la isu egyahay haddii saas lagu dhaho problemka internal ma aha ayaa lagu dhahay marka Soomaaliya dhibka haysta maxaa waay marka Soomaaliya dhibka haysta kaliya waxaa way banaanku ka yimid haddii wax kasta hadday dhacaan adiga waxaa lagugu jawaabay waa faragelis shishaan faragelin shisheeye waxaa lagu jeedaa waxaa loo kala bixiyay faragelin shisheeye oo kuwa gaale ah iyo faragelin shisheeye oo ku dhahay yani gumaysiga madow something okay anaka waxaan isleenahay okay way faragelin shisheeye waa wax run ah way faragelin shisheeye adduunka dhan ayay jirtaa meel kasta ayay jirtaa adduunka dhan interest lagu shaqeeyaa macnaheedu marka waxaan isleenahay wal faragelin shisheeye dadka dhan ay ku socotaa macnaheedu aniga Sheekh Maxamed Cabdullaahi ayaa hadda waqti ka hor wuxuu yiri problemka runtii waxa way markuu gudaha yahay caloosha markuu yahay ayuu wuxuu ka daran yahay markuu u banaanka yahay taas way taan ka fikiraay sheekadaaniito oo macnaha yani shay un qabiila la isla dhaxmar monooya iyo waxaaniit iyo ama faragelin shisheeye waxa kulli waa been runta problemka taagan Soomaaliya ka taagan wuxuu yahay problem oo baahsan oo cadaalad darri ah oo la sameeyay system sheekaha lagu sheego narrative ha lagu sheego wixii rab halagaaga dhaadhici oo lagu yiri macnaheedu dadkii waxa waaye qaarna waasaan Dr. Rashid ayaa Faarax ayaa already noo sheegay macnaheedu marka annaka waxaan leenahay maya ma hasaas dacwo ma qabno qof la dacweynay malaha qof dambile malaha ulijeedada waxay tahay sidee ayaan uga gudubnaa meeshaan hadda aan taaganahay macnaheedu waxaa la yiri sidoo Dr. Rashid Faarax hadda noo sheegay sheekooyin ayaa la sameeyay of course sheekooyinka anaka kaliya ma sameynin adduunka India laga sameeyay meel kasta la sameeyay ambassadorka noo sheegay marka waxa la yiri Soomaalidii waxa waaye dad oo aan Soomaalinimadooda ay dhiman tahay dad oo Soomaaliba aan ahayn iyo qaar oo Soomaali ah sidii wax loo qaybsaday dad waaweyn oo wax bartay oo jaakada wato ayaa soo fariistay waxay leeyihiin waxaanaytu aan ognahan wax ku sheer gareynayna saana wax ku sheer waa la wada ogyahay sheekadii marka dad waaweyn oo annagoo kale isu imaaday oo le waxay dhahay waxaan ku shirnay inaan cadaalad darro wax ku sheer gareyno aan wax ku kala qaadano maya saas ma aha sida ay adduunka oo u shaqeeyo macnaheedu marka secret kalan idin ku daraa marka hala kale oo aan idin sheegayn ayaan idin ku daraa hala kale aan idin sheegayn waxay tahay markii oo lagu dhaho afartii waaweyneed camal afartii waaweyneedda nafteeda been kala waay you have to understand that unless at fahmi weysaan meel loo socdo malaha adiga marka hadaaratid Hargeysa ka soo bilaaw Boosaaso ku xiji Galmudug ku xiji Hiiraan Shabeelle ku xiji South West ku xiji ama hoos ka soo bilaaw meesha ratid u soco meel kasto hal ama laba group ayaa isku aruursatay oo waxay dhaheen barnaamijka annaka idin wadna macnaheedu no we want to say that's not the case maya marabna saas waxaan rabnaa dadka Soomaalida ee qabaa'ilka dhan kulligood in la dhaho okay kulligeen Soomaali ayaa tiin kulligeen waa sheer gareynayna kulligeen waxay waa isla leenahay macnaheedu annaka hadda ma magacaabayno adinka qabiil kasta ka socotaan magaalo kale ka socotaan qabiilka kaaga raadi kan weyn raad waxaad arkaysaa mid kasto laba group ayaa barnaamijkiisa wada macnaheedu
كارت الدورة معنيه موقتك أوكي مركا haddii ay sheekadii tahay ani waxaan hubaa haddii sheekadii saas tahay taariikhda Soomaaliya 20 sano waxayna sheegtay qoladii hadda qolada ka xoog badan 5 sano la kala horeeya qolada kale waa isqaban qaabinaysaa way soo socotaa way ka gudsanaysaa macnaheedu it is not going to work Soomaha qolada kale way soo socotaa way ka gudsanaysaa annaka marka waxaan rabnaa inaan save gareyno generationkii inaan save gareyno baydu aan hadda gabadheeda joogto oo waxaan ku hadlayo xataa aan aqoonin oo Amerikaan so annaka waxaan rabnaa generationkii inaan save gareyno oo aan wadan aan dhisno adduunka waxa way adiga markaas waxa cunaysid iyo waxa adiga barnaamijkaaga leh ma aha adduunka waxa uu ku dhisan yahay waxa waaye ilmahaaga waay kuwii kala waay saas ayuu ku dhisan yahay macnaheedu okay marka sheekadii way ka baahsan tahay hatta sharaxaadii oo shariidna shii waa at the core waay horta tan oo really dhibka ee waxa waaye dad markii la yiraahdo adiga runtii maba jirtaan hadda aniga meel kasta markii aan tagno dadkii waxa la leeyahay yaa sheekadaani waa iska dhib badan tahay ma iska dhaaftaan idinka yani moogtahay ma dhamaanayso moogtahay waxaan Soomaalidan waxaan way iskaga jirjireen way iska wadwadeen waxaan wax dhamaanay ma aha ma naga dhaaftaan macni oo ama waxa lagu yiri wadanka horta aan dhisno ama faragelin shisheeye aan ugu soo socotay kuwana iska celinaynay waa idin soo noqonaynaa annaga maya soo noqosho ma aha annaga waxaan leenahay maya waxa dhibka yaalo waaye kan la xalinaayo markaas waxaan rabnaa inaan dhahno haddii dhibka gudaha yaala la xaliyo kaas ayaa sameynaya wadan xoog leh wadan strong aniga haddaa idhahdid aniga haddaad iquursanaysid aniga haddii hadda oo macnihii oo discrimination aad igu samaynaysid oo ay idhahdid bannaankana looga soo socdaay kaali dagaalka ila gal then aniga waxaan ku leeyahay what's the difference yani dhimasho waay walaalka ha ku dilo walaalka ku imaanaa ku dilaayo ma ka macaanano dilma leeyahay haddii lagu dilo adwaa lagu dilile noogta midinku dheeraanay Dr. Abubakar Armaanna waa kulay waxbuu noogu dari karaa waxaan rabnaa inaan idin dhahno please nagu soo darsama annaka dad ma dacweyneen annaka uma socono Soomaali hebel halaga gudsada macnaheedu dadaa hore wax u haleeyay uma socona annaka waxaan u soconaa hadda ayaan waxaan rabnaa inaan niraahdo inteen ka bilaawna by the way marka oo laga sheekeynayo justice darrada ama minority ajira ama dad la quursaday ajira inta ayaa jira annaka ulajeedadayna ma aha inaan dadkii u hadlayno ulajeedada waxay tahay in fact sameynta arrintaasi ogolaashada arrintaasi to waxa way exactly waxa Soomaalida oo dhan u roon way it's a national issue ma aha wax minority problemka waa problem oo annaka oo dhan na haysta way macnaheedu dadka oo supposedly minority dadka oo la yiri minority ayaa tihiin waxaan ka codsanaynaa sidoo Dr. Rashid oo sheegay inay istaagaan inay kacaan inay u sheegaan dadka dhahan maya haddii adinka aadan istaagin oo aadan dhihin maya sida adduunka hadda oo u shaqeeyo qofku imaanayo oo ku dhahay adiga qof fiican aad tahay kaale waa iska arrinta waa xalinaynaa ma jiro macnaheedu dadka aan ahayn dadka ayaka oo isle macnaha idinka minority ma tihiin waxaan ka codsanaynaa in ay ayakana diidaan macnaheedu in ay diidaan kulligeen haddii aan diidno aniga waxaan hubaa in aan heli karno wadan sharaf leh wadan strong wadan kulligeen aan ku kala noolaan karno macnaheedu hal shay ayaan ku daraa waana ka baxaa macnaheedu aniga waxyaalaha aan barto waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo demographiga iyo population movementiga waxaan idiin hayaa wadan oo waxaa tihiin 14 milyan gobolka Rartijoog ilaa Ethiopia ilaa haddii rabta 20 ha ahaato aniga hadda tiradii miidin la galay hadhow tirada wareer ay noqonaysaa laakiin waxaan idin hayaa waxaa dhinacaas idiin joogo 9 milyan oo Ethiopia oo aan hubno in the next 25 years population doubling oo dhici doono
oo ah noqon doono 130 wadankaas oo intaas oo cadaawo kala xataa aan qabinoo just oo masaakiinnimo hayso waxaan hubnaa in ay Soomaaliya soo galayeen already waa soo galeen macnaheedu marka idinka inta aad ka fikiraysaan kan kula dhashay oo agtaada jooga inta aad leedahay kan kabta saar waxaad tagti kulligeen wadankii in uu naga tagay aad ogaan doontaan macnaheedu waad mahadsantiin kulligeen ما شاء الله شكرا بروفيسور كوسو وأوجين بروفيسور كينو مارت رنتي وسقير الله موضوع على واحد ليه هذا وحنا نرجع على الله هنا نكسر دويه ميكروفونك قفنا وتقانان أنا بحنين رنتي إن أنا ديش جو وحى وقبتي وحى وياهي قفك وياهي يقرأ الذيسة وولالكين برادر أبو بكر عرمان oo ahaa envoygii Soomaaliya u fadhiyay Mareykan aan wada ognahay runtiina qoraaladiisa iyo xarakaadkiisa ama Soomaaliya ka qoro ama diinta Islaamka ka qoro Islaamiyiin ha ahaato ama bariga dhexe waxay noqotaba badankeen aan akhrisanaa si joogto ah oo qoraa markaasna waxaan jeclaan lahayn inaan mikrofoon ku soo dhaweyno si uu arintan Soomaali siman halka uu ka arko iyo mowqifkiisa asna wixii uu ku dari lahaa oo soo dhawaaqo الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وأيضا سلام دمانتين ما كل إيرانا إن شاء الله وقت الدنبواي أورتا وحن ربعنا أماد عليو أنتي سوء أبو شيء يو كسوق أبو شيء وحلي نبي عليه الصلاة والسلام يري قف كان بني آذنك أمهاد علينين الله يسنو مهد عليو marka waxaan isku dayaa inaan xoogaa soo koobo sheeko yar aan rabaa laakiin inaan ku bilaabo on idin la wadaago mar laga joogo adiga 5 sano ka hor oo kala dhalinyaro ay casuuntay marka arintay ka hadlayeen arin social oo ahaa marka waxay yiraahdeen goobtaas ka hadal laakiin wax siyaasad ah isku galin and just because meeshana waxa dhex joogay qolo ka socota USAID-ga funding waa isaga baahnayeen iyagana howlahay qabanayeen humanitarian waa marka waxaan walahi waa xujo waytan because haddii arrimo Soomaaliya laga hadlaayo si siyaasadda loogaga leexan kara ma laha runtii yani waxaan hadaa rabtid inaa ceel qodid dan caaw isugu nimid inaan lacag iska aruurino ceel lagu qodo ama isbitaal lagu dhiso waa arrin oo humanitarian oo samafal ah wanaag ah ana all of that laakiin mar allaala markaa magacaawdid meeshaad ka qodaysid siyaasadda jaa ku jirta Soomaaliya marka meelaad uga leexanaysid ma laha marka idinkoo raalli because waxa dhici karta waxyaalaha qaarkood markaan iraaho inay dadka qaarkood dhibsadaan qasdigeygana ma aha inaan qof yani ku xadgudbo ama aan eedeeyo si gaar ah u eedeeyo ma aha qasdigeyga saas laakiin arrintan oo kale markaan ka hadlayno ma aha inaan uga hadalno si annagoo academicians or just detached academicians marka la leeyahay marwada asxaabtayda oo professorada inaan laakiin inkastoo professor Kuso defied and professor Rashid both of them defied that idea of academician kimokti academician waxa lagu yaqaanaa qofkii waa detached yani uu ka dhaxbaxsan yahay sheekadii oo mowduucii uu ka hadlaaya waa ka faaloonaya xataa taxliil fiican inuu ku sameeyo dhici karto xataa waxa dhici karto inuu strategy ku soo bandhigo and all of that isagoo markaas siiti dhahay dadkaas arintaas haysata amal muqt aniga ma haysato mana soo dhaweynay bahashi oo yani si fiican iyadoo kulul miiska ma soo saarayo marka caawa idinkoo raalli waxaan rabaa inaan ka hadlo horta saddex shay oo waxa jiro dhibaatooyin badan horta na haysto ka mujtamac waan wada ognahay marka taasaan xoogaa ku bilaaba dan insha Allah taala wixii suggestion ana waa soo dhiiban doonaa saddexda ugu waaweyn waxaan isleeyahay waxa waay mid waa horta cadaalad xumada oo laga wada hadlay dadka oo dhan ka wada dhawaajiyeen moogta taas wayna haysataa yani jahlina waa haystaa jahli diineed iyo waa tii hadda disconnection walaalkay
رشيد وسفيان دكتور رشيد سفيان وجهاد disconnection إنه جرو قفك واحد لعي كرتي إنه صلاة دي سدائمه ودين تحت برتو قرآن كحفظيه وسن مركز نولي فهن سنين دين تشغله كل هذا هاي قفك يتبدل كيس موقت قفك يسن دين تبدلين آيات كي حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام مركان وضع آخر السنة هدي يسن هذي وكبدلين if it does not transform you as a person then ما أذن فهمين وحتى هذا اختار وضعك وشيء إنه سيجار كي for example cancer كانوا هذه أنا بعكذا هذا إسكتورته موقت مركا قفكاس وحواي وقفان really فهمين ماشى ودبك كجرو إن مركا لبوا الشيء مدة سدحادنا وحواي مدة كبر كهاد موقت كبر كبني آدم كان وذوقنا يعني تي إلهي سبحانه وتعالى والشيطان كوحي إلهي سبحانه وتعالى disconnection كوجسمي totally يعني ونقضي ما تقانا ريجيم يعني هذا أكتهين إلهي سبحانه وتعالى بنانك كصوت كبر كاس بني آدم كان نوع ما ولي واحد وقف كستبه مرة البحوث كده يا مجتمع كستبه إنه قف كلايته كسرية وسوبيريور وياه يا قبيل كسيدي سنة وحوكينا وحلوية قانو سيرقت claim for superiority مقت قف كحوسكو هايستا إنه مشاكل يا وبلايا وقطريها ريرا وقطري ريرا وكتي كسي قطرسا هنا إن مركا تاس نوي جرتا سدح ذاس combination مركا وحي كينيسا سنان لأنتي كينيسا marka laba waxay qabtaa also arrin oo siyaabo badan loo kormaray kuusowna ka dhawaajiyay laakiin interclan iyo intraclan labadaba waa jira moqti ya waati walaalkii ka hadlay moqti mina waxa way qabiilka kaleeto macnaha u diidan xaqoodii oo madaxa uu gaga taagan qabiilka dhexdiisa marka maadina sidii oo kaleeto sidoo walaalkii dhahay laba ka taliso ama hala ka taliyo ama kaasa madaxa uu gaga taagan wali hadii wax la qaybsanayo iyaga ma taqaana sadki libaaxa qaadanayo inta kaleetana intii soo hartay loo dhiibaa moqti gobol kasto maanta la sameeyay reerad ugu magac dari karta reer hebel waa inta kale oo dhan iska degan yihiin meesha marka meesha xaq darro inay jirto waan ognahay marka kama hadlayna kaliya arinta takoorka iyo waa ognahay taas waa dulmiga ugu weynaa waa qofka maanta hadaad weydiisid qofka Soomaaliga oo tiraahad meesha dulmi ma jira xaq darro ma jirtaa sinaan darro ma jirtaa yeesu kullee waa jirtaa sheekada marka tiraahid waayahay ii sheeg narrative ka jiro dhan waa mid siyaasadeed waa wuxuu kaaga soo bilaabaa dates oo aan ognahay post colonial era xukuleeyahay xukunka markii oo istiqlaalka la qaatay oo meesha xornimo la qaatay reer hebel naga sadbadsan tamam reer hebel waa ka sadbadsadeen xaq darrana waa dhacday xaq darradaas may ka bilaabatay markii Soomaali waxay ahayd dad oo ma taqaan xaq ku dhaqmo ilaa ay maalinkaas laga gaaray markaas ay gardaro bilowday masaasa sheekada ma aha saas sheekada marka waa inaan dabagalnaa oon ogaanaa meesha ka soo bilaabatay waa inaan ogaanaa mid kale tana waxa waaye in la helo means to correct it qaab lagu saxo waxaanayt qof kastana commitment inuu galo aysan noqonin kaliya wax laga sheekaysto ama aan ma taqaan isugu qudbayno on ku kala dhaqaaqno hadhowna waxba ka qabanin moogtay inaysan marna taasno sidaas wax u dhicin moogtay inay noqoto laakiin commitment see loo sameyn karaa way marka su'aasha commitment see loo sameyn karaa annaga waxa waaye we don't have to reinvent the wheel wax hore loo soo sameeyay oo horteen soo dhacay oo taariikhdeeda qoran tahay inaan dib u soo ma taqaana aan dhahna annaga hadartaanaytii ma taqaana dib u soo ogaanayna qaabkii wax loo sameeyna waa annaga qasaaro noota wixii annaga ku soo waqti badan aan isaga dilayna macnalaan dhulkan aan joogno kaleeto waan ognahay taariikhda ugu weyn oo wadankan ka dhacday waana tii hadaayta laga dhawaajiyay civil rights ka isbedelka muxuu ku yimid ma dad iska qaylinaya kaliya ahaayeen mase waxay ahaayeen dad oo strategy laho oo qaab ay wax ku bedelaan ay ku soo wada tashteen isku soo wada raaceen ay ma taqaana kulligood isku kaalmeynayeen miyay sameynayeen mise wuxuu wax iska haphazard oo dadkii just caatifa iska wado oo la laga joojiyo waxaan maalin laga joojiyo saasee the answer is no saas ma aha strategy ajirtay hada for example Soomaalida dhibkana haysto ugu weyn waxa waaye dada isku imaanayo urura la bilaaba xaraka la bilaabaya
ma ogid xataa kuwa safka ugu horeeyo ku jiro inay daacad ka tahay in kaleeto waa yacni runta markii loo wada hadlo qofaas ka xamaasoonaa haye soo galay adigan waayo safka horaan ku jirna saas weligeed wax lagu ma bedelin adduunkana ma ka dhicin haddana ma ka dhicayso laana qalbigaan bas saliim ahaan diyaar u ahaan mugti marka civil rights kan soo noqona afarta steps ay sameynayaan wuxuu ahaa step number 1 wuxuu ahaa purification qofkii yacni inuu yahay qof diyaar u ah oo dhaqdhaqan wasakhdii ka dhaqdhaqanta oo diyaar u ah cad iyo madow waxay yihiinba laakiin diyaar u ah inuu isbedelki dhaliyo then waxay sameynayaan protestation banaanbaxyadii ma qofaan diyaar u ahayn ilaan banaanbax ma horgeyn kartid biyahaas marka lagu furo eeyaha lagu soo furo ama ulo lagu garaaco ama la xabiso ama waa isaga dhaqaaqa Soomaa daacadba marka horeba kama ahaan marka inuu qofkii yahay qof diyaar u ah waa inuu yahay marka labaadna waxa la yiraahdaa purification demonstration kii protestation kii inay sameeyaan then waxa la yiraahdaa after that maxaan sameynaynaa legislations waa inaan sameeyno waa inaan qaanuunkii wax ka bedelno marka waa talaabadii saddexaad momentum la helay qaanuunkii marka in wax laga bedelo you have the Civil Rights Act of 1964 and so forth and so on waa naqaan okay tii marka la soo gaaray marka meeshaan uu ka harayna ma yaalay maxaan sameynaynaa violation qofkii ku sameeyo sharcigaasi waa inaan maxkamad geeyno waa inaan ka daba tagnaa qofkaas waa inaan ceebaysanaa sidaas wax lagu bedelay then hadhowdii dadkii markii isbedelkaas curiyay markii la yiraahdo la sameeyo in civil rights branch of the justice department and all of that yaa way dadka oo hoggaankeeda wada dadkii already mataqaanaa ka soo qayb qaatay u soo dhididay oo dhibka ku soo gaaray iyaga la geeyay why because kuwaas daacad kooski oo ma ahan kaliya inuu u dhashay ama yahay nin madow uun kaliya ma aha ciday doonto noqon karaa qofka laakiin inuu qof seriously u arko inuu meesha inay xaq darro ka socotay oo xaq darradaasna la rabo in la bedelo marka anaga tan noo taala waxa waaye not only kaliya inaan dhahno dadaa la takoora waa run waa jirtay waa xaqiiqo jirto oo loo baahan yahay in la bedelo laakiin sinaantan ka hadlayna taas waaba ka sii weyntaa sinaantan ka hadlayna waxa waaye markastoo laga hadlayo xaq darro Soomaali waxa looga hadlaa as a group weligeed ma dhicin adduunka as a society inaad ku xallisid as a group reer hebelaa waxaan leeyahay okay reer hebelow marka xaqiina idin soo dhicinaynaa weligeed ma dhamaanayso taas shakhsiga laakiin marka aad tiraahdo qofkan bini aadanka xaq wuxuu u leeyahay equal access to everything noocu doona ha ahaado oo qofkaas shakhsiga aad focus ka saartay dan wax waa xallin kartaa albaabadu waa wada furan yihiin shaqo ha noqoto legal system ka ha noqdo qofkaas marka xaqiisa waa la ilaalin karaa laakiin reer hebel xaqiisa lama ilaalin karo reer hebel iyagaan bu ku heshiinaynin xaqo see xaqooda ugu dhicin iyagaan ba heshiis ku weeyaan ba xaq hadii maanta 8 kursi la siiyo liiraa 8 kursi ku soo heshiiya dhaxdooda is khiyaana dhaxdooda isku haysto marka hadiiba ay tahay reer hebelan raali gelina it's a losing cause waaba yani waxa loo baahnaan in la sameeyo oo waqti naga dilaayo oo results ka natiijada ka soo baxaysana horaan buu ognahay haddaan buu ognahay waa soo aragnay intaas oo sanaan arkay marka aan noqono dad oo runtii yani hadii dareenka uu dhab naga yahay waqti geliyo isku walaashada kooska noocana annagoo ka fikirayno ummadaas oo dhan waxa maslaxada u maanta waa ognahay waxa wadankaasi tiburburiyo dhan waa xaq darro iyo qof adeegsanayo oo dad fahmo war reer hebel wax uma soo dhicin kartid xaqoodana ma soo dhicin kartid xaqa shakhsiga waa dhicin kartaa laakiin u sameey system oo qofkaas bini aadanka ee xaqiisa ilaaliyo inaan isagaas gardarro laga galin qofkii then waxaad arkaysaa dad iswalaashanayo wada shaqaynaya mujtamac dhismay oo rabo in isbedel fiican keenaan diintana intayna baraysaba intaas waa كنا ذلاء فأعزنا الله بالإسلام سيدنا عمر آنكير we were scums of the earth dad baaba'san oo dulli aan ahayn
إلى دين تانيتي إن قدك تدعي زله وشرف له. أنا وحن كهلا وحوا very basic things والنبي عليه الصلاة والسلام ده كبره. if you're motivated by other means that's well and good. Because بني آدم ككلية ما هي إنه religious لا قف واحد أركي يساعد عدالتي إلى لنا يسفي عنه ورغم أن ولقيس religious نقول قف كاسنه مال وكسح سنية دنعي religion كجونوا دنعي وكسح سنية وعدالته وكسح سنية قف كاسيتي أنا قفنا واحد أركي يساعد دينتي وهيستاسدان هدايا بنري عدالتنا وحبك أوجين annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala darajada uu nala rabo darajada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala nala rabo waxa waa darajadii oo qofkii muqsidka ahaa in allaha yuhibbu almuqsitiin muqsido maxaa tahay marka fiiri cadaaladda qof waxa dhici karta inuu yahay qof cadaaladda dhowro oo مثلا judge ka soo qaba qaali waa qofkaaniiti ama waxa waa xeer ilaaliyo waaye garti waa goynaa because waa ku qasban yahay template-kii hor yaallo loogi wuxuu dhahayo og yahay isagiyo professional ahaan u qasdinaya inuu raaco systemka wuxuu rabay ayuu fulin karaa cadaaladii hadhowna markuu asiga gooni u yahay dadka kaleeto ama reerkiisa ha ahaado ama qoyskiisa ama asxaabtiisa ama qof aan cadaalad waxba ka ogeyn oo noqon kara laakiin marka courtkiisa imaadid because waxa way system aad dejisan inuu qofkii raaco qofka muqsidka ee marka waxa waay waa qof cadaaladii markii theaterka ama stage-ka uu saaran yahay oo la ilaalinayo dadka dhan indhahooda ay ku wada hayaanna ilaalinayo cadaaladii marka uu mugdiga ku jirana ilaalinayo halkaas u fiirso haddii loo jeedi iyo haddaan loo jeedin marka darajadaas waa darajo aad u sarreyso annaga weli ma gaarin ilaahayna hana gaarsiiyo laakiin waxaan rabnaa waxa waaye inaan noqono dad oo aspiration moogta visionka inaad samaysatid waa qofka individualna waa inuu sameystaa family ahaan inuu sameysto community ahaan inuu sameysto mujtamac ahaan inuu sameysto waa soma marka teen ha noqoto mid oo darajadaas aan mar walba isku dayin inaan noqono dad cadaaladaas ilaalinayo markay dadkoo dhan isha ku haayaan iyo marka laga sii jeedaba moogta ilaahayna naga dhigo intaasaan idinku dhaafaa insha Allah taala wajazaakumullah mahadsanid walaalkeen Abubakar Carmaan runtii waxaa mudan inaan xusno oo dareensiino walaalaheen Professor Kusow iyo Dr. Rashid iyo Abubakar waxay ka kala yimideen California, Iowa iyo Ohio naga intaan deganahay waqti waliba jeebkooda ka socdaan iyaga kharashka iska bixinaya iyaga meel walba tagaya si xarakadan iyo dhaqaaqan ay jaaliyadaha Soomaaliyeed kala duwan u dareensiiyaan oo runtiina yani markaad u fiirsato runtii waa wax saalax ah waa wax qadari ah in laga hadlo in la isdareensiiyo in maaragtay xarakadan la taageero in la helo wax cadaalad ku salaysan oo laga baxo waxaan la kala dadka la kala faqooqayo safiirka soo sheegay aan wax macna ku dhisnay runtii marka waxaan jeclaan lahaa baleerta inaad dareentaan walaalaheen khibradan caawana la hadlay meelaha ay ka kala yimideen iyo safarada ay soo galeen iyagana ilaahay ajra ka siiyo iyo xasanaad annagana runtii ilaahay nagu anfaco muxaadaradii iyo maaragtay dareenkii iyo ay halkan ka soo jeediyeen sida noogu fasireen waxaan jeclaan lahaa adigu hadda nus saac kale waa haysanaa dadka soo qaban qaabiyey waxay jeclaan lahaayeen inaanan la kala tegin oo fursadan isku helno in Abubakar iyo Dr. Rashid iyo Kusow aad su'aalahay wax weydiisaan oo gacanta gelisaan oo xoogaa networking isdhex galno مصورنا أسقاط قادنا سفير كان أهب إنه نلا جوج دونه وجعلان لهين. قلب وناكسن مقعي وحلي هذا نول عبد الرحمن ما أنتوا حنمشان ويمد actually it was by accident وحنو تجي أحمد عود قولي سمر كوحو يرمشان a meeting له flyer كي وتسي
And of course, I wasn't لما عزومين like وائمد because سفيرك أحمد عواد مركا سي آد آد ugu faraxsanahay inaan imid runtii ilaahay caawa waa maalin marka kaliya aan dareemay inaan joogo meel Soomaali ah not meel qabyaalad leedahay not meel oo u go'an groupkan ama groupkan caawa waxaan la joogay dadkii runta ahaa oo Soomaalida ahaa oo sharafta lahaa and I'm so glad inaan meeshaan joogay I mean jariira ayaa igu jajabsan I'm so happy thank you بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحال يراهدا عبد العزيز محمد أويس في واشنطن waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda Somali Siman ma sha Allah waa inta ka soo qayb gashay iyo marti sharaftii noogu timid gobolada kale aad ayaan ugu mahadcelinayaa ma sha Allah waa program aad u fiican oo ummadda Soomaaliyeed wax u tiri karto waxaan aaminsanahay dhibkaana haysto waxa loo gudbi karaa organization kan inay empowerment sameeyaan dadka minority in wax la baro ummadda Soomaaliyeedna la wacyi geliyo waxaas dhibka nagu haya in laga tanaazulo before it's too late jazakallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو صادق عبد الله عبدي وحن كايمد مقالة مينيابوليس قبل كمينيسوتا وحن فيرجينيا ويمد عن كقيب قالوا مناسبة دي سدحات صومالي السمن طبعا صومالي السمن ودقاق بولشو وكترجمايا سنانتي عدالة أمد الصوماليات ما أهمد عد قوني لوغو هيلينايو أما أحسن لوغو سمينايو أما minority قوني لوغو سمينايو ودقاق أو entire nation أما صومالي أو إذل دانوا كاسو كترجمايا سيدي لو هيلي لها سنان بولشديد أو دنك دقالها arrimaha bulshada iyo siyaasadaba marka habka kaliya oo horumar iyo nolol waarta lagu gaari karo Soomaaliduna ixtiraam iyo qadarin ay ku heli karto waa in la helaa sinaan ku dhisan dhinac kasta oo sida ay diinteenu fartay qof kasta uu ilaaliyo xuquuqda walaalkii muwaadinka si loo helo cadaalad waarta oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي waxaa la yiraahdaa Haykal Kanadiid waxaan joogaa magaalada Virginia waxaa kan ila taagan Maxamuud Cumar Samatar oo jooga Virginia waxaanu nahay dadkii isku soo abaabulay inay dadkan isku yimaadaan iyo Haykal waxaan rajaynaynaa inay ummaddu ay noqoto ummad siman oo muxuu ahaa ogaata dad walaalo ah oo isjecel inay noqoto waxaan jecel lahay in laga baxo waxyaabaha kala sooca ah oo kana sidaana iyo kana sidaas marka intaas ayaa jecel lahay intaas ku soo gabagabeynayna xafladan Soomaali Siman runtii dadka qaarkii waxay u maleeyaan inay tahay in laga hadlayo dadka minority-ga ama dadka laga badan yahay cadaadiska lagu hayo oo xuquuqda la meelmariyay laakiin Soomaali Siman waxay u taagan tahay cadaaladda sinaanta guud iyo dhaqdhaqaaqa Soomaalida meel walba ay joogaan oo isku hayaan taasoo maanta keentay in Soomaaliya kala goodo oo horumarkii iyo magacii lagu yaqaan qaaradda Afrika adduunka ay dib uga dhacdo marka waxaan oran lahaa Soomaalida haday sinaan iyo cadaalad iyo dimuqraadiyad sax ah isan meel isugu imaanin in ay noqonayso tii u dhameyn lahayd jiritaankooda iyo magacooda adduunka ay ku leeyihiin marka waa in sinaanta la isugu yimaada meel walba la joogo Soomaalida ay ka shaqeeyaan cadaalad iyo sinaan iyo wajh wanaag waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Nuur waxaan ka imid Columbus Ohio waxaana u imid halkan Virginia caawa xaflad lagu sameynayay Somali Siman oo wax aad u fiican ah waxa programkana uu ku saabsanaa in Soomaali si xal loo helo oo looga baxo oo injustice-ka sharci darrada iyo waxyaabaha xuquuq darradana laga baxo si oo loo midoobo oo horumarna loo gaaro marka waxaan u maleynayaa programkan socdo waa wax aad u fiican haddii la wado waa meesha kaliya ay Soomaali ku gaari lahayd
horumar iyo wadajir. Asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الشكور أشكا الحمد لله إله إسلام نقدقي وحام هذل إلهي نوجه نوني دينتان إسلامك وحك شقي أرنتان كوني شن بغلا سنة كهر وحن واحد دوّد كوضع سياسة جرعان أمة الصومالية لو كلا قيبنا وحكم ميزها مال قلنا وحكى لسرينا مجرته إلهي قرآن كيسوق عدي لا يسر قوم من قوم إن قوم قول كلا حقرين laakiin dadka siyaasiyiinta ayaa waxay wadaa 4.5 iyo xaqiraada marka ummad la rabo in la kala dilo oo la isku geeyo ayaa la wadaa laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay fahansiiyo arintaas si wadankooda ay u badbaadiyaan diintooda u badbaadiyaan dadnimadooda u badbaadiyaan haddii annaga aan noqono dad walaalaha oo isjecel cadowga banaanka wax u qaadaya ma laha laakiin annagii ayaa iska soo horjeedna marka iyagana waxay heleen jaanis annaga nagu kala qaybiyaan oo ay nagu kala geeyaan siyaasadda iyo mujtamaca iyo diinta iyagana waa midoobayaan annagana waana kala qaybinayaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa qalbigeena Allah isu keeno ilaahay diinta hana waafajiyo wassalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Axmed Maxamed Haadi waxaan joogaa magaalada Virginia oo Metropolitan Washington area caawa xafladan isugu nimid oo ah Somali Siman aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo aan ayido ideedeeda aan ka haysto muxuu ahaa in dadka la simo walaalaha oo wax walbana si xaq ah loo qaybsado aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabduqaadir Saciid waxaan aaminsanahay aayadda quraanka ahayd oo dhahaysay yaa ayyuhalladina aamanuu laa yasqar qawmun casaa an yakuunuu khayran dadka islaamka waa siman yahay Soomaalidu waa siman tahay يعني قفك آمن سن صومالي با متقنا مدجان iyo jareer iyo bidda iyo waxaas aaminsan waa qof aayad ilaahay beeniyay marka waxaan leenahay hal laga waantoobo wixii casri jaahiliga Soomaalida ma taqaana ay sameyn jirtay waa in dadku ka waantoobaan Soomaalidu waa dad siman assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh